السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا قاليقة ميل كستا joogtiin kusoo dhawaada channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka walaashin shukri aadan buule. Asxaabta qiimaha badan ee cawada nagala socota soo dhawaada indhahaaya markii iskuulkeen dambeysay topic aan kasoo hadlay wuxuu ahaa dildilaaca ku imaada jirka bini'aadanka ama sida uu naqaano stress matter-ka. So marka waxaa soo laabtay part 2gii ayaan u baahanahay sida lagu daaweeyo isagoo natural way ama dhinaca caafimaadka waxa la qaato inaan kusoo daayaa rabaa halkaan inagoo mahadsan. ka ugu horeysa waxaa la dhahaa argan oil waxa weeye waa saliid ku badan yahay vitamin E-gana sida uu naqanay maqaarka bini'aadanka ayuu u fiican yahay. Argan oil waxay kor u qaadaa ee wanaajisaa maqaarka bini'aadanka ee qoraxda bilicdiisa kor u sameysaa. waxaa la dhahay marka saliidaas ayaa meeshii oo jeexjeexneed ayaa ku massage gareynaysaa. marka ku massage gareysid cabaaya ayaa sugaysaa hadhow waqti awaadaysa ilaa bilo kale way ka dhamaanaysaa ayaa la dhahay. la socdo waa natural way ogaada dhaqso ma aha. talabaad asxaabta qaaliga waxaa waaye lindanaanta waa vitamin C wax kastana waxay daawooyin ay kamid tahay daawooyinka qiimaha badan. iyadana lindanaanta waa kala jeexanaysaa marka kala jeexatida la dhahay iyadoo fresh ah iyadana meeshii oo stress mask sidoo kale iyadana waxa dhan waa massaging actually waxa la habeen kusoo baxaysa laba habeen maaha chemicalna maaha waa natural way waqti ay qaadanaysaa. la socda asxaabta qaaliga iyadana waa ku massage gareynaysaa wixii ka hoos u dhigaysa ayaa lahay tissue jabnaa iyo jirkii ay hagaajinaysaa. iyadana waqti ayaa sugaysaa ayaa lahay ilaa bil ayoo kale ayaa ku arki doonta result. white egg cad waxa laga wadaa waa waxa la dhahaa ukunta cad maxaa sameynaya ukunta cad waxay u fiican tahay asxaabta qaaliga iyadana dildilaaca bini'aadanka ku imaado waxay leedahay high protein waaye. waxa kale u fiican tahay ayaa la dhahay skinka maqaarka bini'aadanka u fiican tahay. soo marka way cadeysaa ayaa la dhahay iyadana isagoo saas inta u kala jeexid iyadana ku massage gareynaysaa ilaa 30 minute ayaa sugaysaa. iyadana waxa la way hagaajinaysaa ayaa la dhahay. ta kale waxa weeye asxaabta qaaliga potato waa saan u naqaano waxa la dhahaa viaziga af Soomaaliga marmar dhinaciga gala Soomaali asxaabta waa baradhada biyo ayay leedahay. biyahaas marka kala jeexdid wajiga xitaa waa la soo qurxiyaa hadda haar leedahay xitaa hadda dildilaac ayaan ka hadlaynaa isagana meeshii stress master-ka ayaa ku waxeenaysaa marka ku waxaysid ku massage gareysid ka wadaa isagana hadhow asxaabta qaaliga waxa la dhahay light meesha cadaan ka dhigaysaa wax dhaqso ma jiro wax kasta bil iyo wixii ka badan ay u baahan tahay waxay leedahay enzyme wax la dhaho wuxuuna cadeeyaa uu hagaajiyaa maqaarka bini'aadanka ee kadkadudmay ama saasoo kale xaleesmay oo stress mask ka buuxo. soo waxa kale u sii guulgalaynaa asxaabta qaaliga olive oil aad ay u fiican tahay waxa naqaanaa waa saliid saytuun af Soomaali soo naqaano saliid saytuunka ah ana iniga aqaan jidka bini'aadanka aad ay u qurxisaa u hagaajisaa actually ka hortaga xitaa way ku jirtaa. iyadana waa ku massage gareynaysaa habeen kasta marka siixanaysid meelihii oo dhan jirkaaga oo dhan oo arkaysaa 3 week ka bacdi ama 4 week ka bacdi oo hagaajismaya sidii ay ku soo laabanaya jirkaaga waxa ana taas iniga hoo because ana sameeyay jiray. waxa kale oo la rabaa inaan sameeyno sugar sokorta cad sa u jeedin hadda meesha ku soo daayay sokortaana cad waxa ku daraysaa saliid naarajin waxa kale ku daraysaa maxaa la dhahaa scrub waxa kale ku daraysaa maxaa la dhahaa saliid saytuun waa isku mix gareynaysaa iyadana waa marsanaysaa 10 daqiiqo ayaa joogaysaa maalin kasta 10 daqiiqo ka bacdi waa iska dhaqaysaa iyadana bil ka bacdi waxa arkaysaa result ama wixii ka baaba'ay. hadda waxaan u sii guudgalnaa castor oil waa la wada yaqaanaa castor oil-ka hadda marsado waxa ay u dhacayso waxa sameynaysaa castor oil-ka iyadana kulli waa massaging waaye natural way waa massaging baan ka wadnaa wax kale ma jiro hal habeen ama 3 habeen kuma soo kacaysid. castor oil-ka isagana asxaabta qaaliga waa ku massage gareysanaysaa habeenkii marka siixanaysid. castor oil-ka way ka adag tahay maxaa la dhahaa saliid saytuunka la socdo waa ka qubaysanaysaa waxa ku sugaysaa 15 daqiiqo 20 daqiiqo ka bacdi waa iska bixinaysaa hadda sida qandac ayaa ka dhiganaysaa ayaa la dhahay haddii kalena saas ku daynaysaa. hadda waxaan si guud gadaynaa aloe vera aad ayuu u fiican yahay isagana waxa la bahalka kore ayaa ka fiiqaysaa waxa u baahan tahay jeelkaas adag ay u baahan tahay. soo isagana waa gacanta ku qabsanaysaa waa ku meelihii oo dhan oo kaaga yaalina ku massage gareysanaysaa marka ku massage gareysatid waxa sugaysaa ilaa 2 saac to 3 saac ka bacdi isagana iska dhaqaysaa ka bacdi ayaa ka arkaysaa ayaa la dhahay maxaa la dhahaa result-ka. waxa kale oo si abgalaynaa apricot waxa la dhahaa waa
maxaa la dhahaa waxaan usii galay guuda galaynaa asxaabta qaaliga ah black teaga waxaa waaye waa shaaxan madow waxa laga sameeyo iyo cusbo ayaa isku daraysaa dabka ayaa saaraysaa waa karkarinaysaa hadhow markuu xoogu noqdo ayaa ku masaaj garaynaysaa marka muxuu leeyahay vitamin B12 ayuu leeyahay B12na maqaarka bini'aadanka ayuu u fiican yahay actually daxta cuntid weliga ma gaboobaysid ayaa la dhahay soo marka shaaxi bahalkaas waa black waxa la dhahaa tea suuqa laga soo raadsado iyo cusbo yar dabka isku saaray markay kulaato waa isku masaaj garaynay hadhowna ka qubaysanaysaa cuntada hadda waxaan sii guuda gadaynaa waxyaalaha u fiican ee afka laga qaadanayo hadda maanta waxaan ka soo hadlay waxa la marsanayo ka hadlayay hadda waa inaan ku soo celiyo waxa afka laga qaadanayo actually biyaha waa number 1 ay ka ciyaaraan meel kastaan ka hadlayna biyo ku jiraan ina maalintii cabtid 8 koob 10 koob la dhahay jirkaaga wixii oo maxaa la dhahaa kudkududkii ku imaaday iyo collagen-kii iyo wixii qofkii markuu koray iyo wax dhan ay nadiifinayaan biyaha wax bay hagaajiyaan wax ma haleeyaan la socda asxaabta qaaliga waxay caawinaysaa ayaa la dhahay jirkii bilicdiisa iyo quruxdiisa ay kor u soo celinaysaa iyo iftiin badan iyo qurux badan ayaa laga arkayaa soo 8 koob 10 koob adartid ina cabtid aan dhahaya actually waxay ka mid tahay ka hortag ay ka tahay oo stress masterka waxa kale oo fiican asxaabta qaaliga vitamin C go dhan inta kuma soo koobi karin papaya berry strawberry wax kasta kiwi waxa aqaantid ama qashay tomato spinach hada weliga aqaantid maxaa la dhahaa vitamin C ga wuxuu la dagaaltamaa jirka oo odayga noqodayna wuu hagaajiyaa quruxu ka dhigaa waxa kale u fiican yahay sidaan oo kale stress masterka qofka jirka miskooguna wuu hil garayaa jirkii sidiisa hore ayuu ku soo celiyaa aad difaaca jirka waxa dhan ee kor u qaada waaye soo marka wasaqadii iyo dehydration-kii dhan wuu hagaajiyaa wuxuu la dagaaltamaa wasaqada jirka ku imaada radicalka waxa soo dhan soo vitamin C ka agdhawaana indhila asxaabta qaaliga waxa kale vitamin ah hada weliga rabtid jirkaaga inuu qurux badnaado waxa samaysaa vitamin B12 ka soo hadlay vitamin C iyo vitamin E na waa cunto badan oo isku imaaday avocado kamid ah waxyaalo badan ayaa kamid ah waxa avocado spinach kamid ah nuts kamid ah squeeze waxa la kamid ah papaya kamid ah oo saliid saytuun xitaa way kamid tahay saliid maxaa la narajinka kamid tahay cuntooyinka lagu karsadaa almondska kamid ah looska kamid waxaas dhan way hagaajiyaan jirka bini'aadanka isagana hada cuntooyinkan cuntid isagana stress maanta kugu yaalo marka waqti gaartid way fiicnaana sideed hore ku soo laabanaysaa waxa kale oo si guud galaynaa kaltan waxa la dhaho waxa waa maraq lacabo maraqaas waxa laga sameeyaa lafaha oo hawayaanka ama ha noqoto ari ama geel ha noqdo collagen ayuu hagaajiyaa waxa la dhahay maqaarka bini'aadanka ayuu qurxiyaa maqaarkii tagay ee halaaway hada marqan aad alaasintid stress masterkinu ka bacaya qurux jirkaaga sidii la rabay ayuu ku soo laabanaya isoo kaniiniyaalna way jiraan dad qaatan way ku jiraan ani waxaan ku la talin lahaa maraqaas lafaha soo gata maalin kasta koob ka caabada stress match leeda waan arki doontaa waxyaalo badan ayaa ka bedelmaayo hadda waxaan sii guud galaynaa omega 3 fatty acid waxa laga helaa cuntooyin badan hadda cuntooyinka afka laga qaadanaya aan ka hadlaya kuwi jirka waan ka soo baxlay marsanayay waxa kamid ah salmon malaya la dhahaa waxa kamid ah waxa la dhahaa waxa kale oo kamid ah kilida kamid ah beefka kamid ah cuntooyinka way badan halka kuma soo koobni garo waxa kale oo kamid ah tii waxa la dhahay seed oo kan hadda meesha ku yaalo waaye Soomaalidu ma badna hindida oo badan iyaga waxaan dhihi lahaa cuntooyinkaas badsada iso vitamin jiro la qaato oo aad iyo aad u fiican wuxuu u fiican yahay qofka bini'aadanka haragiisa adaa wax nabar ku yeelan stretch match duub waxaas dhan jirkaaga gabar hadda waxa noqonaysaa 5 jir ani been ma sheega runta dadni sheeg waxaan sameeyay un baan ni sheegay asxaabta qaaliga waa iga talo meesha omega 3 ku aragtid fatty acid ama vitaminka soo gado ama chia seed kaas gado ama salmon kaas cuntooyinka afka ama kilida cun walnuts ka cun waxaas oo dhan jirka marqaarka bini'aadanka ay u fiican yihiin qurux ay ka dhigata ana ni huba waxaan oo dhan aan ka hadlay waxaan sameeyay waaye ani ilmo aan dhalay hal straight match iguma yaalo waxaan isticmaali jiray saliid saytuunka iyo maxaa la iyo coconut kaas isku shuban jiray jidka marsada markasta
asxaabta qaaliga waxaan dhan waa niga hoo waxaan sameeyay waaye hal istreetat mali gabdhaana ku boorinaya saliid saytuunka ku dadaala waxaan dhan ka soo hadlay waa wax ani ah oo natural way hal istreetat kuma la hadlay ma helaysid waana ka hortag hadaa sameysay alaabtan oo dhan cuntooyinka hadaa afka laga qaato hadaa cuntid cuntooyinkan way la dagaaltamay laakiin aniga Soomaali hadaan nahay waxaan ka saayaa hal habeen rabaa inay ku arkaan result hadii heli waayaan way ka cararayaan wax chemical doonayaan soo halkaas aan sii gudu baxaya hadaa wax ka faa'iideen sheegareeya wassalaamu calaykum wa rahmatullahi